وقتها ولا المعان تو إنه ندش كمدوبة نسين وطن كبوني ولا مقالة لاسعانو waxaan doonayaa hadaba aan ilaa maalinkan imiday ilaa aanadan aan baarayaa gabadhii ayaan tibirkii Ingiriis ka joognay lambarkii la inoo qoray كوفيرك على اخوات مس الاخوان buha koofeerkaasan doonayaa hadaba waxaan kuri gabadhii markaan arkay wallahi aad iyo aad baan la cajabay sida loo soo dhisay hadaba waxaan doonayaa qof inoo sheega gabadha ka marsan u yeedhanayso walaalo walaal inantaay walaalo muwaacantay walaal macaan walaal waan wanaagsanahay walaal waxaan rabaynaa hal mid ku weydiiyo walaal wadi weydiin kartaa in kastan yara degdegayo walaal macaan aad bad mahadsantahay waqtigaaga muhiim ah aad siisay waxaan doonayaa magaalada Ascaanood koofeer ku yaalo la dhaho Al-Khwaat Beach Salon Al-Khwaat Beach Salon ha waan aqaanaa walaal wad mahadsantahay madii shay karaysa runtii waa koofeer aan la dhacay حبيبتي ما هراد تجي جرتي كوفيركا may dad ka soo dhistay ayaan arkay markaan waxaan ku maqnaan jiray wadamadaas iyo magaaladaad ku cusub tahay waan dareemay xabiibtii inaad magaalada ku cusub tahay walaalo marka Al-Khwaat baad u baahan tahay xabiibtii ma waxaad u baahan tahay aroos miyaad tahay mise may iminka ayaa meherkayga la dhigay insha Allah marka waxaad u baahan tahay koofeer iska soo hagaajiso ana ku tusay xabiibtii warbixintiisa kooban ana ku haya waadiga arkayna dushin ka madoobaado walaal macaan walaal dawaan yaabay wadanka taa ku noqotay haddaba xabiibtii waxyaabuhu ku haya ayaan kaaga waramayaa waqtigu igu kooban awgii Al-Khwaat Beach Salon horta waa koofeer magaalada Ascaanood ku yaala waa koofeerka ugu cadcad ma sha Allah dhanka qurxinta waan ku faraxsanahay maanta deano wada maray inaad weydiisay si hagarlaan ayaan kaaga waramayaa wuxuu kugu dhaqayaa kareemo dabiici ah ama Suudaani ah kiimka male sidoo kale wuxuu ku hayaa taashash casri ah keegagii oo lagu sameeyo koofeerka dhexdiisa kamaradii oo lagu shaqeynayo baan ku yiri koofeerka dhexdiisa sidoo kale gawaaridii decoration aan inaba caadi ahayn lagu sameynayo waa caalam kale wallahi maxaan sheegay maalinta meherkaaga hadda Al-Khwaat soo gashid timihi oo nafaqooyin lagu hagaajinayo ilaankii oo caynba cayna de kaagama sheekayn karo adigaagan sidan oo eegiminka waaba naxsana masaasad dibad kaga timiyay Ingiriis walaal macaan aad baan uga xumahay hadaba waxaas maanta dilaawaysa maalintaad madaarka ka dhoofaysid arla quusanaysa quruxdaadii ayaad soo noqonaysaa xural cayn yar walaal wad mahadsantahay horta aadna waan ugu faraxsanahay inaan ku sharaxay de meeshaad rabtay iyo aad baahidaadii sheegatay walaalo inantana ma walaashaaba waa walaashaayadna koofeerkii la raaraaday adna walaalo koofeerkaad rabtay walaalo dushan ka madoobaad waxaan doonayaa koofeer aan ka sharaxay haye koofeerka marka magaciisa Ingiriiska lagaaga soo sheegay Ingiriiskana laga soo sheegay haye wax kale iska dhaafay waxaan ku soo qoranay warqad baan ku soo qornay si aan u ilaawin magaciisa bal ka warama aad baan ugu faraxsanahay horta magaaladii Ascaanoodna haydna ku soo dhawaada Al-Khwaatna ku soo dhawaada waan ku dhameeyay daweyn soo dhaweynayna aadna waad u mahadsantihiin saacadan aan bayni wada yaaba diyaar ma tihiin ina Mariya haddaba Al-Khwaat Beach Salon waa kan ma meesha saa u quruxda badan ba waa meesha saa u quruxda badan haddaba ku soo dhawaada gudahaynu u galeynaa ma sha Allah gudahaynu u galeynaa waayo waanaga ina geliya haddaba waatan Al-Khwaat Beach Salon hadeer waa waqti gelinkii hore hadda la furay de meeshii firaaqana waa timaadeen gudaha ayaa waxa lagu dhaqayaa laba aroosood oo inaga horeeya halkan waa qaybtii nasashada soo dhawaada de Allah walaal macaan mahadsantahay wana ka qabnaa idinka mudan haddaba Al-Khwaat Beach Salon hoyga quruxda wuxuu kugu yaalaa magaalada Ascaanood ee xarunta gobolka Sool dhanka bari xaafadda Yakayaka wuxuu ka soo jeedaa Hotel Peace haddaba ha moogaan oo ha ka maqnaan Al-Khwaat Beach Salon wahagaha hablaha soo saaraha hablaha Al-Khwaat Beach Salon